السلام عليكم ورحمة الله. جمعة مبارك. maantana waxaa waaye maalintii waddankeena xornimada u qaatay ayadana hambalyo. waxaan rabay inaan ka hadlo maxaa la lahaa maanta niyaddeedana kusoo dhacday mar badan iga babatay maalmahan dhan arkayay Facebook ama allaha Instagram-ka Twitter-ga wax walba ku jira laba nin oo Soomaaliya I don't know dadka isku keenay sawiradaas waxay ka faa'iidayeen waxaa la isku keenay laba wiil Soomaaliyeed shumanayso so whatever wax dadkii aan macnihii isku keenay Facebook ama Instagram soo galiyeen horta ilaahaygood ayaa kula xisaabtamaya so maalmahan dhan ayay ku jireen ilaa 3 maalin arkay saaka waxaa daawaday labada qofood oo macnihii sawirada la isku keenay oo hadlaysa Photoshop ayaa lagu sameeyay labada qofoodna waxay dhaheen aroos ayaa joognay labadeedna qofkii aroos ay moog video markaa daawanayay macnihii dad laga been sheegtay video wuxuu ku kooban yahay horta laakiin macnihii waxaa la yaabay oo macnihii zaidna iga yaabiyay laba qof Soomaali ah sawirkooda la isku keeno ayagoo wax xun sameynaya ama Instagram ama Facebook meel walba lagu qaabiyo ayaa wax zaid caadi la noqday inaan arko macnihii wax qaybinaya dadka ajaanib ma aha waa dad Soomaali ah mid kalena macnihii haddii xataa lacala ay run dhacdo ee sameeyeen ka soo qaad miyaa inaa walaalka u ceeb qarisid mase inaa macnihii khaladkiisa aad soo qabtid oo Soomaaliyeed han sameeyso dalkii waa la gaaleenaya oo dadkii waa la gaaleenaya horta ogaa bil Ramadaan lagu jiraa hadal walba aad sheegtidna ilaaha kugu la xisaabtamay mid kale qofka hadduu sameeyay dambigiisa ilaaha iskala dambi u qoray dambi qofku ka galo waa ilaah adiga ma tihid adiga inaa macnihii soo qaadid laba qof oo walaalo muslimiin ah oo sooman sawirkooda inaad soo qaadid macnihii Facebook soo galisid aadayd waa la wiilo Soomaaliya khaniisya ama waa samba dhacday waa wax zaid loo waxmaado macnihii maantana macnihii waqtiga aad joogno Soomaalida meesha isgarab qaban lahayd ayaga ayaa dhulka isku jiidaya waxaa tiri ninkan waxaan uu sameeyay kan uu sameeyay mid kooda horta shaqadaad meesan ahayn ba inaa macnihii qof kale noloshiisa wuxuu sameeyay ka hadashid haddii xataa ay dhacdo inuu qofkaas dambigaas u galay ilaa maxkamad ma tiid adiga cid ku dirsatana ma leh dad kale bilaadanka shaqadooda faragashid haddii dhacdana waa u ceeb qarinaysaa walaalka ma ahan inaa walaalka ceebtiis banaan keentido adduunka idil aad tustid dadkii ajaanibta ah inaad tustid dadkii macnihii Soomaalida 100% muslimka aaminsan inaad tustid ma aha so macnaha videogan ma ahan inaan qof macnihii wax ka sheego ama qof macnihii kana xun ama kana wanaagsan dhaho laakiin macnihii inaad dhaho wax faafinaysid Facebook aad gelinaysid ama meel kale aad gelinaysid iska ilaali waxay yihiin macnihii waxaadan hubin dadka soo galiyay waxa oo soo sameeyay waxa ka daran macnihii dadka share gareynaya imisa qof aad sawirka share gareys almost kumanaan waxaadan ogeyn qof walaalka oo miskiin ah waxaadan ogeyn uu sameeyna share gareynaysa dadka la gaarsiinaysa mid kalena ma taqaanaa bil Ramadaan lagu jiraa waxa negative ka xataa inta share gareyn lahayd at least meel dhigo iska daa dambigaas macnihii ka badbaad iska daa inta qof walaalka dhulka dhigi lahayd qofkan waxa weeyaan qof kor joogaya waxa keenaysa hoostan maadan jeclaan lahayn adiga maanta qof walaalka hadduu ka soo qaad bal qofka wuxuu noqdo qof qaraabadaada qof walaalka uu noqdo ma jeclaan lahayd in waxa lagu sameeyo ka soo qaad aduu noqdo qofkaas adaa sawirkaas laga sameeyay ama dambiga galaba ka soo qaad ilaahay mana tusay ma jeclaan lahayd in sawirka la share gareeyo macnihii qofkaas xumaanta lagu sameeyay maanta aad raali ka tahay ma jeclaan lahayd inaad lagu sameeyo soo waxaan aad jeclaan lahayn ha u ogolaan qofka walaalka inuu ku dhacdo intaas kaliya ayaan rabay inaan gaarsiiyo waxaa laga yaabaa maybe qofkii maanta sameeyay sawirkan ama dad share gareynaya videogan arkaan ee kadib ka shanlayaan ama iska joojiyaan wax xumaanta ay wadaan soo waxa ku dhihi lahaa bil Ramadaan ayaa lagu jiraa ka faa'iideyso fadligeeda xumaantan iska daa walaalka dhulka dhigaysidna ka daa waxa naftaada aadan u ogoleen qof kale inuu ku dhacdo ha ogolaanin